Bismillahirrahmanirrahiim. Halkan waa nuxurka haddii aad ku cusub tahay ka mid noqo ku biir sidoo kale la wadaag saaxiibadaada xogaha warbixinada iyo dhacdooyinka aynu halkan idinkuga hayno waxyaabaha hadduu alawiraalu ka noqdo aan idinkugu soo gudbin doono barnaamij wareedkan waxaa ka mid noqon doona galmudug oo bacsanaysa xubnihii bohol uga qayb galay dhoolatuska ahluzunna ay ku samaysay bohol waxaan idiin soo gudbin doonaa xogo dhacdooyin arrimaha ku gadaaman madhabba maxaase ka jira wararka sheegaya in madaxweynihii hore Soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ka tanaasulay in uu isu soo sharaxo xilka madaxweynaha Soomaaliya si uu dib ugu soo laabto villa Soomaaliya warbixin ayaan idinkaga haynaa hadduu alaweyne uu qadaro sidoo kale waxyaabaha daaban doontaan waxaa ka mid noqon doona Khadija Maxamed Diiriye sababtay u tanaasushay xogo iyo warbixin ayaan idinkugu soo gudbin doonaa hadduu alaweyne raali uu ka noqdo daawadayaal saaxiibayaal iyo xogo dhacdooyin arrimaha ku gadaaman aan idinkugu bidhaamin doono oo aanu ku jeexi doono qodobada iyo kuwa kale ayaa falanqeyn ku samayn doonaa iyo soo dhawaada halkan waa nuxurka wararka haddii aad ku cusub tahay nagu soo biir adigoo markaas la wadaagaya saaxiibadaada xogaha warbixinada iyo dhacdooyinka aynu halkan ku falanqeyno oo faaqiidada ku samayno soo dhawaada mar kale daawadayaal halkan waa nuxurka wararka maamulka galmudug ayaa baacsanaya xubnaha bohol uga qayb galay dhoolatus dhowaan uu sameeyey ururka ahluzunna wal jamaaca kuwaasoo ku soo bandhigay hub aad u culus iyo gaardaka ciyaar aad markaasi u soo jeetay dadyo badan si kastoo xaaladda noqotaba cudud xooggan oo ciidan oo hubaysan ayay soo bandhigeen xubnahaasi ahluzunna si kastoo xaaladda noqoto iminka xubnaha galmudug ayaa la sheegayaa inay baacsanayso xubnihii ururkaasi kala qayb galay dhoolatuska waxaa magaalooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb ka bilaabatay qabashada dad maalmo ka hor gaaray amaba tegay kana qayb galay deegaanka bohol halkaasi oo fariisin u ah ciidamada ahluzunna wal jamaaca ciidamada booliiska iyo nabad sugidda ee ka howlgala magaalooyinkaasi ayaa saacadihii u dambeeyey soo xiray dad badan oo loo haysto inay bohol uga qayb galeen xaflado waaweyn oo ay dhigatay kooxda ahluzunna wal jamaaca dadkan la bacsanayo ayaa deegaanka bohol uga qayb galay xus ay ahluzunna u samaysay ciidamadii uga shahiiday dagaaladii ay kooxda al-shabaab kula galeen gobolada dhexe dhowr iyo 10 sano la soo dhaafay ciidanka booliiska iyo nabad sugidda galmudug oo adeegsanaya macluumaadyo gaar ah iyo tixraacyada sawirada iyo muuqaaladii laga duubay munaasabadii ka dhacday bohol ayaa Gurceel iyo Dhuusamareeb ka bilaabay qabashada dadkaasi dad isugu jira haween caruur iyo dhalinyaro xerow ah ayaa xabsiyada labadaasi magaalo loo taxabay kuwaasi oo qaarkood lagu eedeynayo inay ahluzunno hiil dhaqaale ku taageereen sanad kasta 17 bisha Ramadaan ahluzunna ayaa dhigta munaasabado waaweyn oo ay ku xusayaan shuhadadii looga dilay dagaaladii qararaa oo ay la galeen al-shabaab ha yeeshee munaasabadii sanadkan ka dhacday bohol oo ay ku muujiyeen cudud military oo aan laga filaynin kooxda waxay xambaarsaneed fariin dagaal oo ku wajahan galmudug iyo al-shabaab oo ah laba awoodood oo markaasi hortaagan xukunkooda waxay soo bandhigeen dhalinyaro aad u hubaysan iyo qoryo u badan BKM iyo AK-47 wuxuuna Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo munaasabadaasi ka qayb galay jeediyey hadallo kicin dadweyne u muuqday isagoo dhaliilo waaweyn u jeediyey al-shabaab galmudug iyo dowladda dhexe intaba si kasta oo xaaladda noqoto daawade saaxiib madhabba maxaase ka jira wararka sheegaya in uu markaasi musharaxnimada ka tanaasuli doono madaxweynihii hore Soomaaliya ee sharciyada iyo waqtigu ka dhamaaday ee maxamed cabdilaahi farmaajo buuq xooggan ayaa ka jira Muqdisho mid ka mid ah mas'uuliyiinta sare ee ololaha doorashada u qaabilsan madaxweyne farmaajo ayaa xiriir uu la soo sameeyay nuxurka wararka ku beeniyay warkaasi suuqa iyo baraha bulshada la soo geliyay oo sheegaya in farmaajo ka tanaasuli doono musharaxnimadiisa iyo inuu mar kale u tartamayo xilka madaxweynenimo mas'uulkan ayaa waxa markaasi magaciisa uu ku sheegay in madaxweynuhu magaciisa waxa uu markaasi sheegay inaan la baahin laakiin waxa uu sheegay in madaxweynuhu qorshihiisu uu yahay mid degsan oo muddo laga soo shaqeynayay haddana la joogo xilligii munaasabka ku ahayd inuu markaasi ka mira dhaliyo waxa uu intaas ku daray in madaxweynuhu uu sida ugu dhaqsiyaha badan uu shaacin doono musharaxnimadiisa
iyo in bulshada Soomaaliyeed uu xaqiijinayo inuu xilligiisa mar labaad uu taagan yahay xilka madaxweyne. Madaxweynuhu qorshihiisu waa mid degsan oo aan habboonayn in fadhi ku darida looga hadlo, waana arrin qaran. Qorshaha madaxweynaha ee ku aadan badbaadinta dalka iyo haykalka qarannimo wuxuu shacabka Soomaaliyeed iyo cid kasta oo qusaysa uu la wadaagi doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan, ayuu yidhi mas'uulkaasi ka tirsan xafiiska ololaha doorashada madaxweyne Farmaajo. Wuxuu beeniyay mas'uulkaasi isla markaana uu ku talinayay ama uu ku tilmaamay wararkaasi tilmaamaya in Farmaajo uu tanaasuli doono, isaga oo sheegay inuusan joojin meel uu markaasi ka tanaasulo maadaama buu yidhi dalka iyo dadka ay u baahan yihiin. Saacadii la soo dhaafay ayaa kooxda mucaaridka ah ay baraha bulshada iyo saxaafadda qaar ku baahiyeen in madaxweynaha uu tanaasuli doono markii uu arkay guusha Aadan Madoobe iyo Cabdi Xaashi. Sababta ugu weyn ee tanaasulka Farmaajo ayaa markaasi lagu sheegay cabsi uu ka qabo guuldarro xooggan iyo bahdil uu kala kulmo doorashada, taasi oo hadda ay markaasi beenisay Villa Soomaaliya. Dhammaan xubnihii lagu ururiyay in markaasi Farmaajo ay ka agdhow yihiin ama markaasi laga ururiyay Farmaajo ayaa laga ceeriyay xilalka ugu sareeya dalka sida guddoonka aqalka sare iyo ku-xigeenadiisa oo dhammaan xubnaha markaasi mucaaradka ay ku soo baxeen. Sidaas oo kale waxaa iyana guddoonka golaha shacabka laga adkaaday Farmaajo si la mid ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad. Si kasta oo xaaladda noqoto, dhacdooyinkaasi ayaa ahaa kuwa markaasi qalqal xooggan gelinaya xubnaha kooxdaasi Villa Soomaaliya ee iyadu markaasi doonaysa in libintaasi ay gaadho. Sidaan ogaanayno, doorashadii guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka iyo aqalka sare waxay musharaxiintii tartamaysay xildhibaanada markaasi ciyaareen siyaasad dad badan ay ku jahwareereen oo dhinac loo raaco la garan waayay. Marka aanu ka hadlayno Khadija Diiri, sababta u tanaasushay ayay tahay sababtaasi. Siyaasadda isbeddelka koowaad ee doorashada guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka hoose oo loo adeegsaday dhaqaale waali ah ayaa waxaa ciyaaray Maxamed Cali Cabdalle Axmed oo ciyaartaasi siyaasadeed u sii gudbiyay Sacdiyo Yaasiin Xaaji Samatar si meesha looga saaro musharax laga guuleystay ee Maxamed Cali Cumar Cananuug oo Jubbaland ku matalaya doorashadaasi. Maxamed Weli Cabdalle Axmed 59 cod ayuu keensaday wareegii koowaad, wuxuuna ahaa musharaxii ugu codadka sareeyay. Waxaana markaas ayaa sheegay inuu u tanaasulay halka dumar si loogu heliyo haweenka si sinaan ay u helaan haweenka oo ay ka dhex muuqdaan guddoonka baarlamaanka. Xildhibaanad Khadija Maxamed Diiriye oo kudlo uu hogaaminayo Aadan Madoobe taageerayay kana goosatay nabad iyo nolol ayaa qalqal gelin gaartay haddii ay markaasi tartami lahayd musharax Cananuug, balse madaxweynaha Puntland Deni ayaa gorgortan la galay, waxaana isla goobta ay ka sheegtay inay codkeeda siisay Cananuug sida ka muuqato kaamirooyinka ay qabteen xilligii gorgortanku uu socday iyo heshiiska oo xildhibaano caan ah iyo siyaasiyiin garwadeen ka hayeen sida xildhibaan Jacfar Saadiq John, Yuusuf Indhacde iyo xildhibaano kale ay culays ku saaray in go'aankeeda markaasi beddesho. Kadib Khadija Diiriye ayaa Deni ka dalbaday lacag dhan $300,000 Mareykanka isla xilligaasi lagu soo shubo akoonkeeda, waxayna markiiba ay hubsatay inay guddoontay lacagtaasi ay markaasi si cad u shaacisay meeshuu codkeeda aadayo, iyadoo ay markaas u hadashay si aan wanaagsaneyn oo sumcado ay ku jirtay. Intaasi kadib waxaana markaasi guuldarro xanuun badan ku dhacday dadaalkii Saciid Deni oo waxaa goobta si fudud ugu soo baxday xildhibaan Sacdiyo Yaasiin Samatar oo ka faa'iidaysatay nacaybka ay xisbiga Himilo Qaran iyo Nabad iyo Nolol u qabeen Axmed Madoobe, sidaasina ku heshay midowga codadka Nabad iyo Nolol iyo Himilo Qaran. Doorashadani ayaa waxaa laga baran karaa dhowr cashar, iyadoo aysan jirin cid gaar ah oo ku xisaabtami karaysay guul inay helayso iyo in markaasi isbedeli karaan wax walba sida dhacday. daawadayaal saaxiibayaal, haddii aad ka cusub tahay nagu soo biir adigoo la wadaagaya saaxiibadaada xogaha warbixinada iyo dhacdooyinka aynu halkan ku baahino. Saaxiib daawade, waxaan idin dhaafeynaa oo idinkaga tegaynaa sida ayaa amaano Allah. Waxaan idin leenahay saaxiibayaal daawadayaal, sii jooga oo baaqi sii ahaada xogo warbixino iyo dhacdooyin ayaan idiin soo wadnaa, waan idiin soo gudbin doonaa halkan daawadayaal saaxiibayaal. warbixintan la garay sidoo kale la wadaag saaxiibadaada adigoo sidoo kale sii sheer garanaya daawade. Nabadgelo.